السلام عليكم صاحبيال سو dhawaada meel boodni daafad ka joogtaan fadlan muuqaalkan haduu idin soo gaar noo sii share gareeya si fiidiyogeena saaxiib wanaagsan u gaar saaxiibada nagu cusub channelkan subscribe dhaha wararkii ugu dambeeyay aan soo gali doonaa suuqa kala iibsiga shirki jiraa'id Pep Guardiola Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro record waali ayuu ka dhig bartaas Instagram-ka soo dhawaada Liverpool oo jalas ku qaaday counter attack weerar dhanka suuqa kala iibsiga alla ilaahayo maxaa wax isku daba muuqdaan saaxiibayaal waxaan leeyahay channelkan subscribe dhaha saaxiibada nagu cusub soo dhawaada mar labaad mar saddexaad sheekooyinku way badan yihiin caawa aan ku hormarna harto kooxda kubadda cagta Chelsea wad ogeedeen Soomahan in shalay ama 48 saac ugu dambeeyay ee la soo dhaafay in ay dagaal ama rogaal celin dhanka suuqa kala iibsiga Liverpool lagu qaaday xidigii Southampton ka tirsanaa 48 milyan giriga ee saartay miiska Southampton ee u saartay Chelsea Liverpool ayadana kontrataag waali ah ku qaaday Chelsea waana loo daba mareeyay Moses Caicedo 80 milyan ay ku rabtay Brighton waxa miiska saaraysa lagu leeyahay Liverpool hada adiga aqaadanaysiin ii sheeg adiga Lavio anagana xilligan wax laga bilaabo Liverpool waxay taagan waaba boodnaba waxa isku qaadanaynaa Moses Caicedo iyo waxaan dhaxda noo dheelayo McAllister aan Brighton soo qaadanayna dagaal iyo weerar celis Chelsea iyo Liverpool suuqa saam isku burbursanooyin Chelsea iyo Liverpool Moses Caicedo iyo ku soo baxaa waliba dagaalkan saddex geesood waaye wuxuu u dhaxeeyaa Bayern Liverpool iyo Chelsea waaye waliba labada kooxood oo aad isku reexay waxa waaye Chelsea iyo Liverpool Moses Caicedo dagaalka waxa bilowday Chelsea Liverpool si run ah u soo gashay saxiixan awal wayba ka tala baxday ayaan dhaxdaas ama horaantii suuqan markuu inoo furmaayo xaaladda Chelsea iyo Liverpool halkaas ay maraysaa waana ogtiin usbuucan Premier League neesla leelayaan Caicedo Liverpool mise Chelsea qaybta commentiga ay inkaarka saxaabta qiimaha badan aad iyo aad ay u mahadsantihiin qodobka labaad aan ka hadlayno waxa waaye doonka social media amba goodka social media Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro wuxuu noqday shakhsigii ugu horeeyay Instagram-ka oo noolo oo neefsado oo naf leh oo socdo bil aadan ah oo 600 milyan in ka badan Instagram-ka saaxiibo ama followers ama taageerayaal ku yeesho record kale waali ah ayuu ka sameeyay Instagram-ka Ronaldo legend fahmi kare keep going aan leena marka Ronaldo kabtiis ma noo gasho anaga kabta Ronaldo ma noo gasho waa naga weynta 600 milyan lagu dhaaya oo taageerayaal Instagram ah ajaanibtii xitay ma kulahan intaas oo taageerayaal ah marka odaygan waxba laga ma qaban karaan leenahay hortiisa wax laga qaban kara malaha marka Ronaldo hada halkaas ugu gudubno Cristiano Manchester United ayadana waxa lagu leeyahay goodkeedii ayaa caaba ama macsalaameynaya ninkii ahaa Farid kooxba gooda leeda moogido qof Manchester United fan hadda ka hormaado goodka yaaba hada wax qof kale ma ku leeyahay waxa ku leeyahay Farid waa ku day macnaha halkaas iyo basaktas wuxuu u socdaa horyaalka wuxuu u socdaa oo Turkiga u socdaa Benjamin Bafana waa soo dhaweynaysa Manchester United hadii uu xidigan u baxayo waa in xidig kale ay keento waa ay ku qasban tahay Manchester United halkaas ugu gudbeynaa waxa rabnaa marka inaan hadeertaan u jilba dhigano oo u jilbaha u aasana rabnaa Chelsea iyo waxa kala gureynaa iyo nimanka leeyahay Liverpool kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dandaasiga bilowday oo waxaan ku dhahay dandaasiga Chelsea bilowday dandaasina ma aanay macna ay fahma Chelsea ayaa waxay dalab ku gudbay Liverpool ayadana umad ma ahan saddex maalin waxa lagu dhahay walaalayaal 50 milyan rabnaa maxaa Liverpool ay 45 milyan ku soo dar lacagta dhiman ciyaaryahanka suuqa yaala moogtay Chelsea xaf iyo go'ay tiriyo waa isku soo dhex tuurtay macnaa 48 milyan ee lahfiya miisku u saartay Southampton oo Serbid jirto waaya Chelsea inaysan umad ahayn nin boors weyn laha u joogo Chelsea dhufeeso ku qadanay albaabka ku hor istaaga wuxuu ku leeyahay Chelsea xidigaana rabaa la idhi wuu soo qaadaa waa ogtiin mo marka Chelsea markii halkaas Southampton laga maray Liverpool maxaa ku taqaanahay markaadna ayadoo dhag la qabta lahayn xaf igo ha dhahdee Moses Caicedo ay rabina ku dhaay mar hor ka tala baxday shimee laba bil ka hor suuqa markuu furmaayay iska dhaafto 100 milyan waa marka la Caicedo Liverpool soo moogid Chelsea hadda ku kalifooso Lavio rabtay inay isku soo qaadato Bayern hadana maanta ayadoo dhag la qabta lahayn waa kana waa isku soo tuurtay waxaan Brighton wixii taagantan waxaan cusba igu marayani suuq markii ciyaaryahan oo yaala ee koox soo dalbato ee koox kale hadana koox kale ay imaado waxaan ku dhahaa dhiilkaas dhiil oo waxa macaan waaye macnaha
qamsax fiican aan laga helaa marka xidigan Liverpool waxay bataagantaa 80 milyan oo lagu rabay kaseedo anaka miiska saareen waana soo qaadanaynaa dhaxda waxaaba noo maamulaya taagin anaga xilligan wixii laga bilaabo McAllister iyo kaseedo noo dheelaya bataagan yihiin hal saac qosra wallahi bila waxba la isku mareeman Chelsea iyo Liverpool caadi la isku yaaca dhanka suuqa kala iibsigo waa is haayaan marka adaan hadda ku soo celiyay jawaabta Liverpool iyo Chelsea Moses Casado ku soo bixla ani ahaan harta Moses Casado waa xidig box ee waa macna neeftiisa ay vulta waa energy badan haayo waa Chelsea fafaanayaal badan oo jooga fafaanayaal badan oo jooga Chelsea Casado Liverpool aad dhiila aniga wixii ra'yigaaga waa inala wadaagi kartaa halkaas ugu gudbeynaa asxaabta qiimaha badan weeraryahanka reer England Harry Maguire oo mustaqbalkiisa shaki weyn ayaan tan la gelinayay waxa lagu leeyahay kooxda Bayer iyo Tottenham waa ay wada gaareen heshiiska 100 milyan ayuu ugu biiri doonaa Bayer marka Harry Kane waxa leeyahay laba option mid iska leh macnaha hadii uu diido macnaha horyaalkaas wuxuu aadi doonaa Jarmalka mase sidoo uu noqdo gool dhaliyaha ugu sareeyo horyaalka Premier League wuxuu sii joogi doonaa gudaha England iyo kooxda Tottenham waa arki doonaa 40 gool bis ugu dhiman gool dhalintii Alan Shearer inuu soo jabiyo gool dhaliyaha ugu sareeyo ee kooxda kubadda cagta Tottenham waa 400 kulan oo u saftay 200 iyo wax ka badan oo goolna uu dhaliyay 40 gool wax ka yar ugu dhiman inuu noqdo gool dhaliyaha ugu sareeya ee Premier League taariikhda inta uu dhisnaa horyaalkan Alan Shearer ah gool dhaliyaha ugu sareeya Harry Kane qofka labaad waa inta kala dhan way soo labeynayaan marka waa arki doonaa mustaqbalkiisa dhanka uu dhaco asagana saas waa macnaa laba weyn ah ku jirta ninkaneeto okay waxaan rabaa inaan hadda u gudo galo marka Harry Kane dalkaas ugu gudbo Pep Guardiola shirkiisa jira ee maanta qodobo badan ayuu ka hadlay Manchester City Southampton kabtankeedii hore Burnley ayay macnaa away u tahay Man City halkaas ay yeedi doontaa mar 3 points haduu imaado wax kabtan la dhaho ma jiro cagta wadada saaray waa ogtahay Pep Guardiola saxaafada waxyaalo badan ay weydiisay waxyaalo badan waa uu ka jawaabay in waxaan ku iri weeri difaaca cusub hadeertaan la keenay wax buu ka dhahay waxaan ku dhahay horyaalka Premier League daqiiqadaha lagu daraa saacadaha wax buu ka dhahay Pep Guardiola xitaa waxa laga weydiiyay aabaha niikada xidigan ku tirsan sheeg adiga aabaha niikada magaciisa isoo sheeg adiga kii ka tirsanaayo Brazilianka ah adiga waxba laga weydiiyay Pep Guardiola qacu ka yeerisay saxaafadii wuxuu taagan no way aniga dhiiqalowga ay gelinna wuxuu taagan yahay xidigaas waa xidig ka tirsan dubayaasha West Ham isha fantaadiga macnaha hadeertaan inaan ka hadlan qalad ay ugu tooyiri waxba laga weydiiyay xitaa Palmer in amaah loo diraayo iyo waxaan ku iri ciyaaryahanada badan oo ka hadlay Kelly Walker in Walkerna la gadaayo Palmerna amaah lagu diraayo Pep Guardiola wuxuu ciyaaryahannadan waan sii heesan doonaa safkeyga ay ka tirsanaan doonaan meelna oo musocdaan marka good luck waxaan rajaynaynaa Manchester City gool wacan Pep Guardiola wali baadana wuxuu ka dhawaajiyay in qof walba Citizen ee uusan qalbadiisa gelinin wacdaradii xilli ciyaareedka hor way igu toosta camal muu ka wada ma og triple-kii yaa lagu tashanno leeyahay waa la ii tashtaray Premier League but in ay qaataan oo ay garaacaan ka baqooya camal Pep waa cawaada adiga Pep wuxuu ka cawaadiyay wax yar maahan marka xaaladda waa kaasa Premier League is back habeen dambe ee la wareeg Manchester City asxaabta qiimaha badan aad iyo aad u mahadsantihiin fadlan janaka subscribe dhaw war wax yiriisa iiga dhima 20 wah subscribe halay dhaw aan la share gajranka thank you bye bye aad iyo aad u mahadsantihiin see you again another time is soo laabanayna bari aan soo laaban doonaa doo ilaahay idmo bye bye